marka waxaan ka wadaa hadduu bini aadamkan hadafku uu ka lumo ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa u fiirso dadka muslimiinta kamaalqabeenka cibaadaysanaya wallaahi cibaadadiisa uu ku raaxaysanaya ka faqiirka cibaadaysanaya faqrigiisa uu ku raaxaysanaya ka maaragtaana bugtaanka mid bugtaana baad arkaysaa oo buuqanaysaa oo lugiya gacantay qallashay haddana ku leh alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah waa nicmad buu ku leeyahay maxaa ninkani ilaahay ugu mahadinayaa baa layidhi waa iimaanka qalbigiisa ku jira macrifada ilaahay marka hadafka laynoo abuuray walaalayaal hadduu inaga lumo sidaa dadkaa kale maanta gaalada ee dalkan iyo caalamkaba aan arkayno siday u nool yihiin ayaa maaragtaan qofka bini aadamku cidhiidhi buu galaya cidhiidhi keliya maaha bal adduunyadiisuna way dayacan tahay aakhiradiisuna qofkaasi way dayacan tahay khasaaisa ilaahay uu aniga isiiye waxaa ka mid a buu nabigu yidhi in ummadayda iyo anigaba carrada la nooga dhiga maaragtaan meel dahuur ah oo hadduu qofka biyo waayona carrada uu ku tayamumi karo hadduu masaajidka uu gaadhi kari waayona salaadu meeshay ku soo gaadhaba uu ku tukan karo aayadda xadiiskaasi markaa wuxuu ku tusinayaa diinteennu maaha diin ku kooban masaajid keliya maaha meel walba in ilaahay lagu ammaano ilaahay lagu caabudo ilaahay lagu raaligeliyo waa hadafka ilaahay adduunka uu dhisto u taagtay weeyaan marka in yar waxaan wax ka odhanayaa inkastoo waqtiguna uu nagu yaryahay maqribkana aan masaajid kale iyo dad kale aan la ballansannahay hadafka laynoo abuuray muxuu yahay waayo hadafka haddaan garanno nolosheenna adduunyadan iyo teenna aakhiro way noo toosa laakiin qofka hadduu hadafka uu ka lumo oo hadafkii dhannaayo adduunka loo keenay iyo ciddii keentay iyo ujeeddii laga lahaa hadduu ka lumo dee qofkaasi adduunkanna noloshiisu waa burbur aakhirada intaan la gaadhinna adduunkana qofka cadaabta ku asiibi marka hadafka horta laynoo keenay waxa weeyaan waa inaan fahmno waxaan bilaa hadaf haba yaraatee ma jiro layrkan haddii uu damo oo uu gubto waa la bedeli laana hadafkii loogu talagalay uu ka tegay ka dhigan tahay mikrogan hadda aan ku hadlayno haddii uu cabdilmo qashinkaa lagu tuuraya waa la iska tuuri waayo laana hadafkii loogu talagalay uu ka weecday marka hadafku waa muhiim jiddan shay kastoo adduunkan yaallo oo iska daa bini'aadam ilaahay abuuray iskaba dhaafay ay bini'aadamku gacmuhuga ku samaysteen hadafkay u samaysteen hadday ka waayaan shaygaasi waxaa la dhigayaa markaa meesha la yidhaahdo qashinka ayaa la yskaga tuurayaa waad aragteen gawaadhida markii ay cabdilanto ee la samayn kari waayo waa la yska tuuraa modeelladu waa la mid oo dharku waa la mid oo maaragtaan aqalladu waa caynka aqalla 100 sano ka hor haddii la dhisay hadda la gali kari maayo laana hadafkii loo dhisay way dhaafeen haddeetoo la iyaku marka shay kaste haddii hadafkii loogu talagalay uu ka weecdo waa shaygaasi markaa waa uu lumay ka dhigan tahay deedna waa la iska duur waa la iska xoori meel baa la iska dhigin innaku bashar baa nahay oo ilaahay casa wajalla isaga adduunyada ina keenay allihii ina keenay adduunka inagu soo biiriyey ina jirsiiyey haddana ilaahay jalla wacalaa cabas ciyaar iyo dheeldheel inooma abuurane waxau inoo abuurtay hadafkiina waa laynoo caddeeyey oo abuna aadam calayhi salaam iyo ummana xawaa markii arlada la keenay ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi imaa yaatiyannakum minii hudaa faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aadam calayhi salaam iyo ehelkiisii markii arlada la keenaa ilaahay ku yidhi aadam durriyadaada u sheeg waad tarmi doontaayo adduunkan adiga ayaa ka noqonaya khaliif oo basharku khalqiga ilaahay abuuray waa kuwa ugu karaamo badan oo ugu sharaf badan laakiin bani aadamka waxaad u sheegtaa aadamow ubadkaaga baa lagu yidhi hanuun baa xaggayga iniiga iman doona hanuunku waa shareecadda weeyaan waa rasaa'isha ilaahay jalla wacalaa uu ergadaya rususha inoogu soo dhiibaya weeyaan haddaad hanuunka aad soo raacdaan baa ilaahay yidhi murugoonina wax niga murugsiyana arki maysaan wax ini cabsi geliyana arki maysaan baa ilaahay yidhi aayad kalena waa kii ilaahay ku lahaa falaa yadillu walaa yashqa hanuunkaa ilaahay xaggiisa ka yimid qofka rumeeye ee raaca adduunka dusheedana qofkaasi baadiyoobi maayo beelaha ku dhici maayo kuwa aakhiro khasaare ee hoogeen naarta ku dambaynayana ka mid noqon maayo marka hadaf waxaa jira wax hadafa oo bini aadamka loogu talagalo adduunka loo keenay waxna waa wax daruuriyaad oo qofka bini aadamku ugu baahan yahay biyahan in la cabo waa min adaruuriyaat cunnada in la cuno waa min adaruuriyaat dhar in la xidho waa min adaruuriyaat
أقل إنه قفك هوي وكوه إذا ويهلا ومن الضروريات كسب حلال قفك إنه كشبه ومن ضروريات واحد مع ضروريات ومحي وهو حمر والبآن اللوب بأهنين لكن مركي اللوب هذا ولا استعمال عليه مثلا بيها سي ده قفك ما تودن بيقوة معيو لكن مرة اللي مركو يور أو ما أيو بيها عبيا ونختارض وحي بريها ندك كل رجليا ما دام ندك فرد ودي مبتي وشقدي قعنت أي كشقين يانا أوكي هراتك أوكي نسان أي راتي waxay ba kula taliyaan cunadana adiga u baahan ka joogso biyahana adiga aan u baahnayn iska cabaynaan wa illa laakin wa min ad-daruriyat yuwa daruriyat cunadu wa daruriyat qofku reer yeesho wa min ad-daruriyat inuu meherad ka shaqeeyo wa min ad-daruriyat inuu dharxid wa min ad-daruriyat inuu seexdo wa min ad-daruriyat in maragtaan uu dalciyaad reer inuu helo wa min ad-daruriyat waxaasi waa daruri waxay ka dhigan tahay maxay waa shayga mar uu loo baahdo ee mar kasta oo joogto aan loo baahnayn hadafkuna waa maxay hadafku waa waxa la doonayo ilbiriqs inuu noloshaada uu ka maqnaan marka hadafka la inoo abuurtay adduunka la inoo keenay waa maxay waa ilaahay cibaadadiisa hadafku waa kaas quraanka ilaahay ku sheegay wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ilaahay bana jinniya ins hadaan abuuranayna wax kale umaan abuurana ma yahay waxaan u abuuranay kaliya inay annaka nacaabudaan in gartaan ba ilaahay marka garashada ilaahay bini aadamku ay garanayaan ayaa noloshooda adduunyada ku hagaagaysa noloshooda aakhirada ay ku hagaagaysa haddii ay bini aadamku allahi koonka keena ay garani waayaan oo noloshooda ay ula wacdaan xagga daruriyaadka waa maxay waa inuu qofku faqad uu ka fikiro oo meeshuu seexan lahaa wuxuu cuni lahaa wuxuu xidhan lahaa meeshuu mari lahaa wuxuu samayn lahaa inuu wax dhalo uu wax dhaqdo uu wax fuulo uu seexdo uu cunteeyo uu iska socdo bila hadaf bila hadaf ma hadda bila hadaf lana waanu noolaanaya waa qofkaas waxa la oranayaa waa dalaal uu halaabay oo uu lumay qofkaas oo dariiqa xagga uu ka weecday mar hadduu dariiqa xagga qofka uu ka leexdana ilaahay azza wa jalla adduunkan intuu joogo qofka ilaahay garabkiisa uu ka baxaya وما حاول يلا قفنا لما إباديوبا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى بين هيري وفي كان دوش يدا إلهي طاعدي سكت جيستبا إلى هيري الديون أنت اللي جوب النرش وقلنا ولانا والعليري ما برا حيسان يبا بقالها هدوها حيسان بقالها هدو بحرا حيسان مايو مصر يدرجة هدوها حيسان مصر يسكو بحرا حيسان مايو أولاد في عالي الرير وناكسن هدوها يسكو بحرا حيسان مايو شقوينك الديون أبو قيمة بدني أقوانت هدوك أبو قيمة بدني هدونا يهي وحبا كرا حيسان مايو وهي وحا ونقضي قفك نقف هدف كي باكلمي هدف كي maalin dhexdaaya maqtac waxaan akhrisanayay naag islaam duqa oo waddanka faransiiska u dhalatay oo filosofada laga baray waxay tidhi waa da'deedu waa 9 jir waxay tidhi lacag sidaan lacag u samayn lahayn baan dadaalkaygii oo dhan ku bixinay tidhi lacagtii waan helay tidhi aqalada adduunyada ugu quruxda badnaaya ugu qiimo badnaana waan dhisanay laakiin usrad kuma dhaxayna bay tidhi usrad ومعنى الرير إسهايستا آبا يهوية يؤبد اسكو حدانو إسهايستا أقلدي أن نسنة الديوة أقول قيمها برناكم هاي سنيتني وإذا عبدانكو إنكم ما أنت أن يكسني إلا أن قواسا عمر قاري المهو قهدوك قاري سيدي يتوانجر هو يدينا ما يقانو أبيهنا ما يقانو قوة كدتو ريدي ميشيغان بري أنكو جوغنا أيام نم صوماليا وآدو داوين وضدكي ولينا السمانتي السمكي صوماليا كبحيها ayaa la noogu geeyay guri markaa isagoo jiifo xanuunsan anagoo jamaaca markaa dhowr jinsiyadood baan iskugu jirnaa markaa Soomaali Arab Suuriyiin nala socday Pakistaani baan nala socday Afro American baan nala socday waan isla soconay waa ku weecanay markaas aan u ducaynay wuxuu ri kaalay yiri aqalka dariskayga waxa ku nool bur oday duqa oo gaboobay iyo islaam duqa oo gabowday waa laba cadaan oo Mareykan ah waa labadu way xanuunsan waa sakaraad kaalay ayakana bal u tago salaama buuli wax dada aniga u galabuuli markaasaan u galay mar alle markay arkeen annagoo las ku soo galay aqalkii odaygeena halkaas soo jeefa iyadina halkaa bay jeeftaa labadoodii baa la soo kiciyay way saf fadhiisteen markaasay farxeen markaasay kala bateen odaygii Yuusuf bay ku yidhahdeen Yuusuf intan oo dhan wada qoyskaagiina bay ku yidhahdeen ila Mareykan dadkaasi habartu waxa laga yaabaa mar nin cadaan inay la noolaato laba cadaan u dhasho
mar mid madow waa u imanaya laba mid madow bay u dhali mar mid Chinese waa u imanaya mid Chinese u dhali marka iyagu xagga hooyo walaalkeen xagga abo walaalkama marka wuxuu u qaatay intayadan inay islaan kaliya wada dhashay maca Yuusufka markaasuu yidhi may islaamnimo bay ugu soo ziyaarteen buu islaamnimo likawni anni muslim ogaashahay ogaadeen inaan ahay muslim ayay aniga isoo booqdeen buu yidhi wax nasab oo ka dhaxay haba yaraatee ma jirtee waxa naga dhaxaysa laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah markaas islaantii duqda iska uyday iska barooratay markaas aan ku nidhi maxaa la ooyaysaa bal noo sheeg waxay tiri master Yuusuf adigana diin ahaanba dadkaagu kugu soo ziyaaranayaan oo waxaa leedahay dadka kale jinsiyada hooyada aabanimada dhaline laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah baa walaala ku nahay annakana labadii u wadeen dhallayda wiil iyo gabar baa ilaahay nasiiyay yidhaahdeen maalintii 18 jir gaadheen baa wiilkiina noogu dambaysay inankiina maalintiiba noogu dambaysay yidhaahdeen labadooda marka aqalka waxay ku haystaan odaguna ay yar baa qolka ku haystaa iyana ay bay qolka ku haysataa hadday dhintaana cid dhaxlaysa ma jirto dowladda hoose ayaa dhaqaalahooda iyo guryahooda ku iibsato $10 marka u dambaysa oo waxaan ka wadaa marka haweeneydaas waxay tiri lacag waan sameynaa sidaan u sameyn karaynaba aqalladii adduunyada ugu qurux badnaana waan dhisnay tiri laakiin aqalladii usrad kuma haysano nolol usradeed oo is haysata kuma haysanay tiri waxay tiri haddana ashyaadii adduunyada ugu qiimo badnayd waan iibsanay oo aqallada waan dhiganay haddana sacaadadii qalbiga ma haysanay tiro raaxo ma dareemayno daawadii adduunyada ugu qiimo badnaydna dhakhtarradeedii noo yaalin guryaha dhexdooda haddana caafimaad ma hayna bay tiri jaxiim naartii jaxiima la oranayay ayaan adduunka dusheeda annagu lacagteeda ku samaysanay tiri marka waxaan ka wadaa hadduu bini aadankan hadafku uu ka lumo ilaahay wuxuu yidhi waman acrada can dikrii fa inna lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa ilaahay baa yidhi qofku hadduu ilaahay daacaddiisa ka jeestu dhabarka u jeediyo ilaahay garan waayo nolosha adduunyada intuu ku nool yahay qofkaasi waxa uu ku jirayaa markaa cidhiidhi ka bixi maayo weligii mar horena qisadaa waa sheegay niman tuuristi oo caddaana meel xeeba ayay marayeen iska dalxiis bay haayeen nin dhallinyaro ah oo markaa muslim oo xeebta adjiifa bay arkeen doontii bay soo weeciyeen way u yimaadeen way kiciyeen maxaad meesha la jiiftaa wuxuu yidhi nin waxaan ahay beesheer waa kalluumayste khaydka xadhiggaa badda iigu jiro oo kalluunku marka malaygu markuu qabtana waan kacaabuuro waan qabsadaa laba xabadood haddaan shaqaysto gurigaan iskaga noqdaa buu yidhi ma laba keliya ah laba xabadna waan iibiyaa oo masaariiftaan ka dhiganaa aniga ubadkaygu midna ciyaalka noolkooda ayaan uga dhigaayo basaskaan ayay u raacaan buu yidhi intaa markaan shaqaystana waan iska hoydaa buu yidhi way ka naxeen oo lacag bay iska ururiyeen baa lido lacagtii bay siiyeen wuxuu yidhi lacagtan maxaan ka dhigaa wuxuu ku yidhi waxay ku yidhahdeen shabag baad iibsanaysaa shabag baddaad ku tuuranaysaa halkaad maalintii laba xaba keliya ka qabanaysay 20 baa laga yaabaa shabaga inay kuu soo gasho deedna magaaladaad kula noqon waad iibin lacagtii lacag ka badan baad samayn markaasuu yidhi kadibna waxaan in muddo ah sidaa ku shaqeeya lacagta uruso markaasuu yidhi kadibna marka dambe dooni yar baad iibsanaysaa qoriyo oo badda gunteedaad ku dhaadhacaysaa badweyntaad tegaysaa halkaad 20 qabanaysay 100 baa laga yaabaa inaad soo qabato markaasuu yidhi kadibna waa laga magaalada caasimadda ayaad xaafadaha paraashitood ku yeelato meel walba malaygaad ku buuxino cali kalluun lagu odhan baa lagu yidhi markaasuu yidhi kadibna waddanka dhan baad u dhoofin doontaa kadibna waxaad la soo degi doontaa maraakiib warshadii samaynaysay saaradiinka ee masnaca lahayd baad iyaad soo iibsan doontaa deedna badweynta markabku xaggaana kalluunka baddu ka soo nuugi xagga dambana masnaci weeyaan uu shaqaynayaa adduunkao dhan baad u dhoofin doontaa markaasuu dee kadibna marka dambe nin waxaad noqonaysaa riisho milyondeera markaasuu dee kadibna aqal qasri oo weyn oo villaad dhisan oo si fiican baad u seexan bay ku yidhahdeen markaasuu yidhi hadda markaad ii timaaday hurdaan iga kiciseen buu yidhi ma hurdadaa un baan intaasoo tacaba aad ii marinaysaan buu yidhi hadda markaad ii imanayseen soo ma hurdin hurdo haddaan haystaayahay waa ina iska socda buu ku yidhi waxaan ka wadaa dadka maanta inaku hadafku qofka muslimka hadduu hadafkiisa haysto u fiirso dadka muslimiinta kamaalqabeenka cibaadaysanaya wallaahi cibaadadiisa uu ku raaxaysanaya ka faqiirka cibaadaysanaya faqrigiisa uu ku raaxaysanaya ka maaragtaana bugtaanka mid bugtaana baad arkaysaa oo buuqanaysaa
ولقي قعنتي قال شهاب نكله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والنعمة كلها محان نكن إلهي يقوم هذين يا بالله وإيمانك قلبك سكجري معرفة إلهي marka hadafka la inoo abuuray walaalayaal hadduu inaga lumo sida dadka kale maanta gaalada dalkan iyo caalamkaba aan arkayno sida u nool yihiin ayaa maaragtaan qofka bini aadamku xiriiri buu galaya xiriiri kaliya maaha bal adduunyadiisuna way dayacan tahay aakhiradiisuna qofkaasi way dayacan tahay sida darteed hadafka ilaahay noo keenay walaalayaal inaan ku adkaano weeyaan waa maxay hadafku waa cibaadada ilaahay cibaadaduna waxay ka bilaamaysaa waa ilaahay macrifadiisa أول ما وجب على الإنسان ومعرفة إلهي جل وعلا حبيت إلهي أذكرته أياد إلهي الرالق قليل حبيت إلهي أذكو أذرالق قليل ست أياد نلسى يأدوك يتاخرين كوها جاجي نلسى نصد هذا سبوح لدي وانا فهمتان حبيت فكنت إلهي وبرتو إلهي قرته أياد إلهي طاعد يسقود بيران إلهي أضيعي حبيت أذكو إلهي أضيع دنا نلسى يأدوك يتاخرين كوها جاجي حديث القدس إلهي وكيلها إني إذا وضعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية أنا أبوما يقول هذي أمر كي يقعتان إيلان دا إلهي دا يضيعان ورشد وانبركين با إلهي رالي ما كان نقول يا عدة الرالي قل سنة با إلهي وانبركين بركة بيدون النهاية ما يكون لما تمل با إلهي وإذا عصيت وقدمت با إلهي هذي لا يعاصيه وأبوما يقول سيدا أنو الربي أي أسعني وياه غضبت با إلهي وان عرون وإذا غضبت لعنت هبان عروننا عدة يقعري سيسيبا إلهي واللعنة اللعنة ومحي نحريس سيدا أيام كدرين يا ويان وإن اللعنة مني تبلغ صابعا من الولد لعنة ديدونا كائدة عريسية كب كورناني ميسي إلى علمه شط الضباب اللعنة كسي مغمى إلهي عبادتنا ونلشيني بركين سا معاصدنا نلشينا أي بركتك قادة سا بل أديك علمها دشك مكهم نانيسه إلى فعادة الضباب اللعنة أي كم مغنيسا سلا درادد ولا ليال إخواني وأخواتي وحن نقول بورينا يا مفتدنا نقول نستيحين يا هدف يونا إن قلوا من الدنيا جوغنا وارون الدنيا ذا إلهي من نقول أبو ري شغل يد اللهو ديدي مايو حلال با إلهي نكي موجودين سادون نولانيس الشرع عدا كو شيغيسا سادو كورسنيس الشرع عدا كو شيغايا سادو غنعسنيس الشرع عدا كو شيغايا ساد غيركاغا او كبنيس الشرع عدا كو شيغايا ساد ما هذا تربيدينيس الشرع عدا كو شيغايا دين markaan hadal qaado salaad kaliya ma waxa laga hadlayo diin markii la hadal qaado waa nolol isku dheeli tiran weeyaan laga bilaabo dhalashada ilmuhu dhasho ilaa godka qofka la dhigayo waxa la rabaa inuu ku noolaado sharciga ilaahay jalla wa ala من دلشة غفر مركو دشو أي النبي صلى الله عليه وسلم صحابته سوقد عن جري بارك الله لك الموهوب لك ورزقت بره وبلغ أشده وشكرت الواهبة إلهي أكو بركة يقولك كل شيء إلهي نحوقي سحب موجيو ودادي بركة سنين الله قارسيو أدنا ما ركتاني كوكو شكريا الله كادغو ساس النبي قد عن جري مركو قفل إيل في قبرك لديك هنا وحال قلنا بسم الله وعلى ملة رسول الله أما بسم الله وعلى سنة رسول الله والغدقاء دلشة ما ننت دلشة وحال لقد بلابها قفك والدعادس ما ننت قبرك لديك الذكرقاء والنبي وأصحابته أنك مجري أيها الربا قفك إيل كإيل الغدقاء انت مركا نلشة لمشهد دلشة أولا عيسى وإن أظن ولا تاسد أبضونك إلا حرما هنا أدخل حرمة كل من أطعم إلهي بأمه هو يمكن أن أطعمت إلهي يمكن أن أطعمك إلهي مركا أطعمك خيار مليه أطعمك خيار مليه خيار ومحي يعني من بوحود دون السمين كرا أو أمد أحبنا معها وقت لاغو أمد أحبنا لنا أرقاغو أمد أحبنا لنا مقلقاغو أمد أحبنا لنا بقالغاغو أمد أحبنا لنا دني الرمضاغو أمد أحبنا لنا وما شاء الله مرماها شرع بينك لنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع قال لك وكاس ليش هذا أن كجرنا مع المهن وحا كجرت عاشورة كجرت عاشورة سنة 4 أيام كذب بإيمانتها إيمان دوتا
nabigeenu calayhi salaatu wasalaam madiinata almunawwara u yimiday yahuudi madiina la deganeed oo soomaysa buu nabigu arkay saxaabadiisa ayuu ku yidhi waa maxay soonkana yuhuuddu caashuura ay soomayaan markaasaa nabiga loo sheego lagu yidhi waa maalintii nebi muuse calayhi salaam ilaahay uu ka badbaadiyey fircoon ee fircoon iyo qoomkiisana la halaagay nebi muuse iyo qoomkiisana la badbaadiyey weeyaan markaa nebi muuse ayaa ilaahay ugu mahadnaqay oo isagoo rabbigii ugu mahadnaqayu nebi muuse soomay sidaas iyakuna markaa u soomaana waa sharcigoodii markaabuu nebigu yidhi nebi muuse annaka uga xaqle sooma buu nebigu saxaabadiisa ku yidhi kal dambe haddaan nooladana taasuucaba ku darayaa buu rasuulku maqduubi calayhim iyo waladaalliin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cibaadadiibuu ku khilaafay sharcigiibuu ku khilaafay shareecadiisa towraad ee nebi muuse noo soo dhiibay toosnay ayuu nebigu ku khilaafo wuxuu yidhi haddaan kal dambe gaadhana taasuucaabaan ku darayaa buu nebigu yidhi sagaalaadkaan ku darayaa si aan yahuudu khilaafo maaragtaanay innakana mujtamaca muslimka dhallinyaradiisii maanta eega ayaa qudwo u ah ayayse ku dayanayaan صلوا في نعالكم وفي خفافكم بالنبي وخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون على نعالهم ولا خفافهم حديث معنيه سوهاب النبي والصحابة كلهم خفقي لي كبيه إن كنت كذا ويهود خلافه النبي روايه يهود ماركتاني كمت كذا النبي خفقي يا كلام كمت كذا ما حكى ولا محن حديث توسل قادني ولا ليال عبادتي الصحة هيدا شريعة النبي موسى بي أي نبي محمد يهود وكو خلافي إنك أنا مات مجتمعين لأنني يرانا أبدا ذاتك أي كبيان أيام حضي برقالشاء أي تهي حضي نقن أي تهي حضي سعود أي تهي حضي هذا أي تهي وحن مات كبيان إن الأغيار كوي مغضوب عليهم ولا الضالين ذاتك إلهي أعرضي اللي عملة والخنازير وكوا ماركتان وفارغ الإلهي وكدقي وياه خنازير تيبايرت الإلهي وخصفي أيام ما أنت اللمودة إلي أدوك يكهر ومرأي حيان مركاسا مسلمكي عقلكي حتى كما سعودو علمكينا كما سعودو بالليلي عقلكينا كما سعودو بل وحاكو سعودنا مات عقل ذاتك لا إليه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب وقرم النبي هذا الكائن عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معيط نيجي لو ننجر المشرك قريشات أيا عزمت بوسبي وليمت ومركي مكان جوجي دين الإسلام غريب كاهي مركا عزمت مركا عربت أي سنين السنة شخص قيمة بدن نقالة مكة وبشرت بدن وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا عزمت النبي محمد كم غيهي وناقص وين عزمت داسي لذلك الضيافة دي مركو ويري دعوتي بدك دعوتي بنبي قارسيي نبي عليه الصلاة والسلام استغوا بلك إلى لنا يا وحاول نغري قفتي وقصوا غرية وقصوا قلا سوء بلك نكا وقحيو وانا مشرق نكاسي الله سعود سيدا النبي والأخلاق ذو وقوها باجنا يا إيقا وأي نبي الدعوة والرسالة ومدى أقود بنا يا رسالة أخلاق ونكسب بالنقود بيا عبادة إخلاص ونكسب بالنقود بيا وعبادة إلهي كأقبله وحاول شرطه وإخلاص لأن عبادة إلهي ما تقجه دائما كأقر عن النقضه أما الرسالة مركات قد بنيسو دعوة أمده هذا قد بنيسو شرطه وحاول مركان حسن الخلق إنه قفل دبعاده ونكسيش لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو قصه الرئي مجرمين جي قريش مركي مادين أبو جهل باركي مركز ورما ماشا محمد جوبه أيها أنك النبي يدبو كيف مال بان نغا دعدي مال بان نغا دعدي انا كو كان دررني وايو نكا دغال بان نغا دحيه بيدادين صفها احلامنا وعاب الهتنا ومات هذا يجب نغا عيبيو نغا دليعين وديده عقلك بدنانا من وهو كشيغ ددان مسخيا ما لهين بو كشيغي aabayaasheedii dhintayna eelan naar buu ku sheegay manikaas maaragtaanay diinta noola yimiday annaka maaragtaanay dhulka nagu dhifatay miyaad ugu yeedha casuumadda ma meel maxamed joogaad annagana noogu yeedhay waa kaa dareeraynaa markaasuu ilaahay ga dareerinay maxaa yeela balin sheega waxay idhahdeen annagoo u jeedno arkayna maxamed hor joogso wejiga qofka ka tufay ku yidhahdeen waxa nabiga sidaa loogu yahaanaysanayo waa diin ogow وأنا أديك سيد الرسالة ونصو قاري لحي أي النبي سيد الله قال عليه الصلاة والسلام سيدي بو سمي قال كيفنا مركز أنا كومي يدين أنا إسكني مدين فتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم
markaabuu nabigu isagoo murugoonaya oo qandhuufta wejigiisa ka bixinaya ayuu nabigu aqalkii ka soo baxay inta uu gurigiisa gaadhin ayaa qur-aanku ku soo degaya wayowma yacabdu daalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam attakhid fulanan khaliila laqad adallanii can aldikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula waqaala arasuulu yaa rab ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura maalin baa iman doontaa nabiga lagu wadkur xus maalin baa iman doonta daalimkaas iyo daalimiinta la mida farta intay dhexda ka qaninaan bay ku calaacali doonaan maan muxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa maan raaca way abijahal baa ilumiyeen warkiisa maxaan u qaadanayay maalin bay ku calaacali doonaan baa nabiga lagu yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiina wakafaa birabbika haadiyan wanasiira qur'aanka marka nabiga qalbigiisana waa la dejinayaa oo la leeyahay arrinkan adiga kugu dhacay kuguma eka adiga keliga kuguma eko dadkii hore ee risaalada u soo dhiibnayba sidaasunbay mujrimiintu u jeesjeesi jireen oo loo dhibi jiray laakiin adiga rabbigaabaa kula jira nabiga lagu yidhi gargaaraad haysataa haadi baad haysataa dariiqa xagga kugu ridaye ha ka walwalin baa nabiga lagu yidhi maalin keliya adiga dhib kuu geystaan laakiin dhibaatada way ka sugaysaa ka weyn baa ilaahay ku yidhi ikhwaani wa akhawaati walaalayaal zamanku waa zaman adag weeyaan intaynan maanta halkan fadhida 100 qof ma dhinnin laakiin mujtamaceenna eega dhallinyaradeenna eega bidaat weliba waddankan aad joogtaan waa waddan mujtamac kale uu nagula dhex nool yahay maantadan aan ku lahaa nin saaxiibka iyo qoyskaaga maxaad magaalada iskaga keentay waddanka islaamka aad uga keentay walaalayaal waxaan helayno iyo waxaan waayayno waa inaan isku qiyaasnaa waa inaan dhallinyaradeenna mujtamaceenna aan risaaladda iyo dacwadda u gudbinnaa laana ummaddani waa ummad ilaahay uu doortay raggeedana waa doortay haweenkeedana ilaahay waa doortay marka allahna inagu anfaco naftayda iyo lafihiinaba waxaan ku baraarujinayaa waxay noo ballana inaan diinta dadaalkeeda u kacno inaan noqono aamiriina bilmacruuf wannaahiina cani ilmunkar sida ilaahay qur-aankaba uu ku sheegay waa khasladda ummaddani ummadihii hore ay kaga khayr badan tahay ilaahayna ha inagu anfaco hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh